haddaba walaalayaal bishii Ramadaan maadaama ay nagu soo dhowdahay oo maalmo kooban ay ka hadheen su'aalaha isweydiinta mudani waxa weeye bisha Ramadaan maxaad ku qaabilaysaa bisha Ramadaan maxaad qorshaysatay ee ku diyaarsan bisha Ramadaan maxaa barnaamijka ee ku qoran ee meel ku yaala bisha Ramadaan ma waxay ku soo galaysaa adiga oo sidaadiya mise bisha Ramadaan waxay ku soo galaysaa adiga oo diyaar garoobay bisha Ramadaan ma isleedahay noloshaada waxbay ka bedelaysaa mise bisha Ramadaan inta ay ku soo gasho ayuun bay ku dhamaanaysaa iyadoo ay noloshaada waxba ka bedelin ma diyaarsatay qorshayaal aad bisha Ramadaan noloshaada iyo naftaada iyo cibaadadaada aad wax kaga bedelayso waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa xalaqaad kooban iyo duruus iyo casharo kooban oo maalin walba soconaya bisha Ramadaan oo 30 Ramadaan ama 29 haday ku dhamaato labadaba casharadaasi mumayyizaadka iyo waxyaabaha ay ku socnaan doonaan waxa kamid ah horta casharadaasi dheeraan maayaan waxay noqon doonaan casharo kooban oo qofka daawanaya aanu ku daalaynin casharadaasi waxay noqon doonaan casharo qofka muslimka waxyaabaha waajibka ku ah bisha Ramadaan waxyaabaha sunnada u ah waxyaabaha cibaadadiisa iyo amalkiisa kordhinaya wax sahay ugu noqon kara waxyaabaha ay ku soocayin waxa kamid ah waxaynu soo qaadan doonaa daliilada iyo waxyaabaha aynu cuskanayno waxaynu ka dhigi doonaa aayadaha Quraanka Kariimka iyo sunnada Nabiga Kaleey Salaatu Wassalaam baynu ka dhigi doonaa iyo taariikhdii iyo siiradii dadkeenii wanaagsanaa bisha Ramadaan marka ay u soo gasho dhaqan nooceeya oo kale ayay lahaan jireen axaadiista aynu soo qaadanayna inta badan waxaynu ku dadaali doonaa axaadiis saxiixa oo culimada muslimiinta mu'tabariintu ay tasxiixiyeen ama axaadiis xasana oo aynu ka ilaalino axaadiista dacfiga ah ugu dambeyn bisha Ramadaan waxaynu ku mumayyizaadka uu duruustan yeelan doonaan kamida inaynu soo dayno maalin kasta casharka isagoo oo kooban oo qof kasta oo muslima uu ka faa'iideysan doono waxaynu kala socon doonaa barnaamijka iyo duruustaasi HD quality dhalinyarada magaalada Gabiley isku xilqaamay inay ku sameeyaan inay dadkooga u baahiyaan wixii wanaagsan ee khayra ee ummadooda anfacaya naftayda iyo nafihiinaba Ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka bareeyaa inuu wixii wanaagaynu isninaano Allah inagu anfaco wixii zalla ah iyo simbirreexe ee carabka ka dhacana Ilaahay tabaaraka wa tacaala inaga dhaafo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa bisha Ramadaan inuu ina gaarsiiyo inagoo caafimaad qabna ina waafajiyo inaynu bisha Ramadaan ka faa'iideysano wa sallallahu ala nabiyina